soo dhaweynayaa cilmi baaristii la sameeyey ee problemka qamrada. waxaan u baahannahay waqtigeedii baan dul taagannahay, maantaan ugu horreysay waana lagu daba jiraa in kan keena iyo kuwa gata iyo kuwa gada iyo baabuurka lagu qaado iyo kuwa kaydiya iyo meesha la dhigo waxaasoo dhami inay isugu tagaan xabsiga. sababtuna waxay tahay dadkii bay xabsi isugu geeyeen. reer gaalkacyood oo dhan ayagoo kooban oo 100 ama 20 ama 50 anigu tiradooda ma ogi, waa ogaan doonaa, laakiin ayagoo kooban baa dad 100,000 ku dhow xabsi isugu geeyey. marka ayagu inay xabsi galaan waayo. waxaan ka rabnaa marka dhalinyarada ballanqaadkii ahaa waa idinla shaqaynaynaa, waan bilownay, laakiin guryaha gaalkacyo ma naqaan, dadka gada ma naqaan, dadka keena ma naqaan, baabuurta lagu qaado ma naqaan. indha noo noqda aan iska soo gabagabayno 48 saacadood soo socota. taas waa ummul khabaa'id. maanta oo dhan baan ka hadlaynay, shalay baan ka hadalnay xumaan hooyadeed. waayo qofka xumaanta wuxuu ku kala soocaa garaadka iyo maskaxda oo fiyow oo caadiya. haddii uu iska qaado hooyadiis kama yaqaan qof kale, cunugiisa kama yaqaan qof kale, gabadhiisa qof kale kama yaqaan, daris ma yaqaan, qaraabo ma yaqaan, xishood ma yaqaan. qofkaasi marka waa qof dhintay oo khabaa'is oo dhan iyo xumaan oo dhan ay isugu tageen. waxaan rabnaa marka inaan iska qabanno fursaddaanna ka faa'iidaysanno. beri subax iyo caaway taliyaasha booliiska waan u yeernay, waxaan nidhi taleefanadooda ha la soo waco. guryihii lagu gadi jiray waa laga wareejiyey qaarkood, xal oo dhan bay warwareejinayeen, qaar tuulooyinkaa la geeyey. nimanka bulshadaan oo dhan ka baqaysay, booliiskii caadiga ah joogaa ka howlgalaya, xataa cid kale hadda ma gasho. laakiin awoodda meesha taallaan, dadku awooddooda is arag, xirsi awooddiisa ma arag, guddoomiyaha gobolku ma arag, booliiska meesha joogaa maysa arag, bulshada lafteedu maysa arag. 100,000 oo qof suurtagal maahan 50 qofood inay xabsi geliso. marka arrintaas waa idinka sugaynaa. teleefanadiina qofkii baqaya message ha soo diro, SMS-ka ha soo diro. lacag kuguma fadhido, meeshaas gurigaas hebela tilmaan fiicanna bix, askartana ha lubin. taas waa middaas. guud ahaan galmudug waxaa ka dhacay oo ku wadnaa oon uga nimid xamar iyo siyaasaddii dalka oon fiirsan weynay oon nala xumaatay inaan matelno meel dadku 10 galabnimo ama 5 galabnimo ay xabsi gelayaan oo inay deegaankeenii noqoto meel ramadaanka dumarka la kursanayo. way nala adkaatay inaan meeshaas matelno oo aan dhahno deegaan doorashaan leenahay aan matelno. taasaa waxay keentay inaan nimaanno oo howlaha asaasiga u ah deegaankan xasiloonidiisa iyo horumarkiisa. annaga ma ahan meesha adduunka hadda aan ka hadlayno inaan nabad helno. adduunku wuxuu ka gudbay goor hore. 500 oo sano dowladaha qaarkood baa nabadoodu ay gaarsantay, qaar baa 800 oo sano gaarsantay. basic weeye biyaha iyo in laga hadlo nolol iyo nabadgelyo iyo socodka in la socdo iyo wadda in laga baqayo, waxaas adduunku waa ka tallaabsaday. waxayna dhaafsiinaysaa marka taasi wix allaalay wixii horumar ahaa. galmudug reformka ku socdaa waxay tahay inay dad caadiya, maamul caadiya, maamul basic needskii qofku uu haysto, baahiyadii guud, baahiyadii asaasiga ahaa, oo waxyaalaha horumarka inta laga gudbo lecture in loo gudbo. guryo waaweyn, baabuur waaweyn, shaqooyin, mashaariic la abuurto. halkaasaa la rabay in laga fekero. ma ahayn in laga fekero galabtii casarkii ma mari karaa waddada. habeenkii kuwa alkulaystayaal ah nin xaaskiisii ka umushaa waxaa la yidhi habeen bartamihii saqbarkii intay istaajiyeen ayuu ilaa subaxii iska taagnaa, qoryo geesaha uga qabteen. mana dhaqaa, haddaa dhaqaad waa kugu dhufanaynaa yidhaah. waa iska sheekaysan halkaas iska fadhiyaan, asaguna
meeshaasuu taagan yahay de bulshada soo noocaasi runtii reer banu israa'iil baa waxaa lagu lacnaday kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh yacni iskama reebeyn munkar iyo wax xun oo ay samaynayeen markaasaa lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil waa la nacnaday sababtoy tahay xumaanta iska badaada in lagu taageero waan la yaabnay ciidan meel weeraray oo maleeshiyaada xirab ciidankii danab ay fadhiyaan weeraray ayaa odayaashii iyo ummaddii o dhan ay taageeraysaa leeyihin waa wiilasheenii waa xaniyaheenni hubkaan oradar xaniyahaadi waa kugu yaallaa hadduu wax tarayana kuwaanu dhalay waxna waa tari waayeen ummaddii bay baabi'iyeen waxaan rabnaa marka reformka iyo isbeddelka bulshadu haddaysa qayb ka noqon askari meel taagan ma noqon waxba ma samayn karo bulshada tunis wiil jaamacad ka baxay oo shaqo waayey oo gaari gacan gadanayey oo nin booliisii gaari gacankii ka qaatay ayaa isgubay maxamed bucasiis waa isgubay madaxweynihii dalka waa baxay rejiimkii tunis oo dhan dibadda u carab wiilkaas awgiis masar the same iyo meelaha libiya iyo dhulka o dhan suurtagal maahan marka in bulshadu ay iska qaadato habbi isaga noqoto oo aan ka sheekayno wax tiradooduna yar tahay dhagaxna aan ku dili karno weliba la yidhi hala reebo isbaaro iyo khamri iyo maaragtay mooryaan iyo qori iyo technico waxaa ka jiraysa waxaa ka xoog badnaanaysa midda sharciga ah galmudug ay yeelanayso inay ka xoog badan tahayna waxaa muujinaya technicada halkaan baabuurta halkaan joogay iyo ciidanka kaloo ka soo horjeedaahi iskuma dhigmaan cudud iyo awoodba sidaas intaas yarta ay bulshadu u baahnayd waxaan marka rabnaa inaan soo gebagabayno cahdigii madoobaa oo aan u gudubno in dadkaani dekada ay helaan mashaariicdii la hor taagnaay o dhan ool maaragtay xarumihii o dhan waa la degan yahay meeshaan inaan maamul ka jirin xirsi raalli hayga ahaado maayarka yacni xarumihii lagu shaqayn lahaa ayaa waxaa la yihi xarumo ijaaraha lagu jiraa isku dawayaasha wasaaradaha qaarkood xarumihii dowladda lagu talagalayna wadaad niikinaya iyo mooryaan baa degan marka maanta waxaan amar ku bixinnay birina aan rabnaa inaan bilowno maayarkii guddoomiyuhuna ayna hoggaamiyaan xarumihii siday u soo kala horumariyaan baa looga bixinaya ayagu say u soo kala horumariyaan taas kulligoodna waa laga wada baxaya ciidankana waxaa loo asteeyey meel docol u dhow indhaqaris xeladaas inay tagaan baabuur technica oo aan maamulka galmudug ka amar qaadan oo iska socdana waa qabasho la wareegid wa marka guud ahaan waxaan soo gebagabeynayaa dadka sooma baan u turayaa isbeddelkaas dadku u dhashay ma ahan reer dhuusamareebeed iyo reer cadaado iyo gurceel iyo cabuudwaaq isbeddelkaas dadku u dhashay oo ugu weyn oo ka faa'iidaya dadka halkan degan waayo dadka halkan degan waxaan rabnaa marka inaan loo jixin tuugga inaan loo jixin waa la daryeelayaa baabuurkiisa iyo asagaba laakiin ninkii diida inaan biri jufannimo loo soo taageerin aniga jufadeydii ayaan waday oo soo xiray dhuusmareeb ku soo xiray annaguna waxaa soo gebagaboobaysa marka inuu wiil maleeshiyaan ugu hanjabo waa ku difaacaya hadda nin baa dhahayay maaragtay 300 iyo hal maalin halka maalin xitaa difaac mayna problemo abuuray ayuu rabaa qaadiya ku rabaa iyo raashin inaa ku siis oo gabdhuhu caana u geeyaan markuu xoogaa wareeraba dagaal buu abaabulaya waxaan rabnaa aqoontan halkan ka muuqata ee dhallinyaradan bulshada inay ka muuqato kama muuqato bulshada anugu ma arkin kolley meelaha aan tagno o dhan dhallinyaradii aqoon-yahankaa guryahay ku jirta dhallinyarada aqoon-yahanka odayaasha wax uma sheegaan
dadka bulshada uma sheegaan see bulshadu isku beddelaysaa haddaad lafahaada tiraahdo waa badbaadsanaya lafahaadana ma badbaadsan kartid lafahaada xitaa waa lagu imaanaya marka hadda xalay dumarkii xoolaha iyo qali jiray subax hore ka lihi jiray 10 saac iyo ka baqay awal ka lihi jiray oo baqay oo cadceedda sugu jiray xalay 10 saac bay soo tooseen arrintaas marka waxaa la idinka rabaa isbuuc kaliya nasiiya isbuuc taageera inta kale haysta sida xirsi sheegay isbuuca labaad dhaliila iyo waxa rabtiin bilaaba hal isbuuc kaliya nasiiya tol haddaan nahay waxaan ku soo gunaanadayaa waa mahadsantihiin runtii fursado badan ayaa dhallinyarada aqoonta leh hoygooda ugu imaan doonta haddii nabaddan iyo xasiloonidan si fiican looga qayb qaato shaqooyin baa imaanaya shaqaale badan baa la qaadan doonaa isbeddelkani wuxuu sababayaa in deegaankan la joogo lagama yaabo intaan nool nahay in isbaaro soo noqoto in tuug kaloo khamri soo noqdo waayo mabaadi' bay naga tahay mabaadi' bay naga tahay lagama labaynayo runtii dhallinyarada badankoodana hadda kuwan dhuusamareebgeennoo kale waa ka raysteen xitaa kuwii kale soo wacayaan waxay leeyihiin sababtoo tahay aayadda qur-aankaaba ah aw yunfaw min alard meeshay dembiga ku geysan jireen in laga dheereeyo oo meel kale la geeyo waa lagu daawoobaa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah waa qaadicu dariiqyadii wayascawna fi lardi fasaadan an yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjulahum min khilaaf aw yunfaw min alardi waa u naxariisaneed qaraabay ahaayeen aw yunfaw min alardi oo marka lagu sameeyey khayaaraadkana diintana aysaraha waa la qataaba midda fudud xukunka haddii qaadiga uu yimaado 3 sano iyo sanad iyo 5 bilood hadday noqoto diintu waxay qabtaa midda fudud oo aysarka in la qaato oo aan la adkayn waayo qofka waxaa laga yaabaa 5taas bilood inuu edab ku yeesho marka waa mahadsantihiin jaamacaddana waa u mahad celinayaa brofesor shirwac macalinkaygii maamulahaygii dugsiga sare u ahaa kaas balbalaare ardaydii uu soo barbaariyaan ka mid ahaa haddana arday PhD dhigtaan ah aniga laftaydu ardaynimadii waa ku jiraa marka waa isku soo noqonaynaa waxaan rajaynaynaa madaxweynaha inaan keenno markuu yimaado soo booqdo halkan qoorqoor oo dhallinyaradii talooyinkii hadda oo si fiican loo bisleeyey oo loo lafaguray oo kooban in dhallinyaradu aqoon-yahanka ahi ee gaalkacyo joogta gaalkacyo mooryaan iyo khamriye cab baa lagu bartay intaan maba la aaminsanaba inay joogto aniga lafteydu ma aaminsanayn iska badaa qof kale oo meel kale ka yimid marka waa mahadsantihiin waa isku dayaynaa inay jadwalkiisa aan ku soo darno oo halkan la isugu keeno oo aqoon-yahankan ula